السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له الصوماليات إيه ورم سيدتين في عنتين الحمد لله أنا كنا وافي عنها الحمد لله إلهي بما هذا لي مركلي أنا ذا فيديو ما له روحان كهالله أدو إلهي يرى إن المهاي إسقال قصيدة الله قبل قراية قبل يرى أنا إن شاء الله قصيدة يعني للشير قراية هذا نوحان كهالذينا المها آذانها إسقالك إن شاء الله تبارك الله haddii marka janaalka ku cusub tahay soo dhawow subscribe-ka ii saar like-ana ii saar haddaad sii joogtina waa dhowdahay maanta waxaa waaye batoobigeena haddaad qabtid ilmaha high schoolka waxaa dhici karta inay sport ciyaaraan oo mataqaanaa ilmaha ciyaaraan basketball adigu waxa whatever cunugaada uu ciyaaro marka cunugaada markuu kasoo baxa iskuulka wuxuu aadayaa ciyaarti markuu aado ciyaalkaas waxay haystaan qof walba wuxuu waalidkiis soo siiyey marka waad ogtahay cunugii maanta iskuulka cunto fiican lagama cuno iskuulkiya mataqaanaa uu kasoo baxay oo maanta dhan jooga 8 hour kabacdina wuxuu sii aadayaa markuu saa ugu soo baxo haddana ciyaar marka wuxuu rabaa before ciyaartaas uu galin waxyaabo uu cuno oo inta afka ku sii qabsado oo energy-giisa uu ku helo inuu qofku markuu gaajo haysto ciyaar karo marka waxaa la rabaa inaad ciyaalkaada hoos ahaan u ogaatid oo waxa waaye ciyaalka kale oo socdaan lacag bay haystaan waxbay gadanayaan cunugaadina lacag ma haysto cunugaadina lacag uu wax ku gato ma haysto oo waxa waaye waxyaabo aada u weyn waaye marka inaad ogaatid cunugaada oo markuu baxayo subax walba waxaad heli kartid oo markuu iskuulka kasoo baxo oo basketballkina weli uu bilaaban ama ciyaaradii ahaataba uu weli uu bilaaban markuu sport ku qoriyo cunugaada waxaa la rabaa inaad ogaatid lacagta uu waxa ku gadan lahaa inaad cunugaada hooyooyin aad ogaatid special hooyooyinka ayaan la hadlayaa aabaha haduu jirin waan la hadlaa laakiin special hooyooyinka ayaa ilmaha aada ugu warqabaan haduu wiil wanaagsan oo ilmihiis ka warqaba uu yahayna waa u sheegayaa uba dhageysta badana wiilal ma dhageystaan gabdha ay ugu xiran marka waa inaad ogaatid cunugaada ilmaha kala lacag bay haystaan markii laga soo baxa iskuulka meel baa jirta oo wax laga gata cunug walba oo lacag wato wuxuu rabo gadanaa juusta gada waxaa rabta gada wuxuu markaas u cunaayo oo lacagtiis u goyso ayuu gadanayaa cunugaadiyaa kuu soo haray lacag ma haysto bartakaasuu indhihii mirix ka siinayo waxba ma haysto waxaa dhici karta ilmaha isku mid maaha qaarkood inay u gadaan oo dhahaan waa kana haddii maalin walba ma loo gadaa maalin walba cunugaada ma tuugsanaa marka waa embarrassment waa inaad cunugiina ilmihiina inaad ogaatiin ilmihiina inaad hoos ahaan u ogaatiin qaybtaas cunugaada markuu ku xiran yahay sport ku xiran yahay in aad lacag yar oo wax ku gato in aad siisid cunugaada in uu maqaadarad bartay waad fahmi kartaa inaad la socotid inaad cunugaada maalin walba dadka maqaadarooyinka cabaan aad ugu sheekaysid dhibaatada ay leedahay ilaa hooyaa tahay xoog malihid waxba mali laakiin wax sheegataan aad leedahay mar hadduu high school gaaro sheegataan le waa marka waa inaad mar walba u sheegto dadka dhibaatada ee mataqaanaa ay iskaga tuuraan oo mataqaanaa iskuul la-aan ku dhacdo oo shaqo la-aan ku dhacdo oo qofkii future-kiisa uu ku ciyaaro oo markay dambe u dambeyso homeless inuu noqdo oo meelahaas isaxdo waa ugu sheekeynaya cunugaada mar walba waa xasuusinaysaa mar walba waad u sheegaysaa mar walbaba qatartay leedahay u sheegaysaa mar walba waxaad u sheegaysaa saaxiibta qatarta uu leeyahay in la isqiyaamo saaxiibada inay isdilaan saaxiibada inay god ku gelin karaan yacni qof cunug yacni fajigan oo mataqaanaa wax walba kasii baaradegay ayuu noqonaa cunugaadi in aad marka la sheekaysatid ama gabar ha ahaada ama wiil ha ahaada in aad la sheekaysatid sidaas sirta oo dhan ugu soo saartid in aad la saaxiibtid badanaa waxay jecel yihiin gurigooda inay hoosta ka xirtaan waxay rabaan breefadkooda inaad gashid ma rabaan telefoonkooda inaad baarta ma rabaan
laakiin markaad la saaxiibtid telefoonkaada asagoo adigoo meesha fadhiya lagu furaa xataa waa lagu furayaa haddii aad saaxiib la tahay saaxiibadiiska oo soo waca ay wuxuu ku leeyahay hooya la hadal saaxiibkeyga cunugan waa saaxiibkeyga la hadal ku leeyahay laakiin maxaa waaye haddee waa in aad tahay hooyo friendly ah hooyo wax loo sheegan kara hooyo yacni ayaga camal noqoto markaad tahay waa laakiin markaad tahay hooyo saa usoo taaganoo wax walbaba wax ka sheegto dee cid wax kuu sheeganaysa ma laha cid wax kuu sheeganayso ma jirto qaybta kale waxay tahay ilmaha soo waweynaaday waxay rabaan in ay sameeyaan jiimka waxaa la dhahaa feerahooda inay dhisaanay rabaan inuu feerihiisa dhiso inuu mataqaana jiimka qaado inuu birtaas qaado inuu feeraha soo weyneeyo unli hadduu soo kacayo waa ogtiin adiga markaa aniga soo kicin sidaan ahayn oo kale waa marka waxaa la rabaa waxay rabaan cunto badan inay cunaan mar walba inay cunto cunaan oo waxaa la rabaa markay guriga joogaan ilmaha inaad cuntooyin kala nooc karisiin oo waxay rabaan feefarkooda inaad maalintaas karisid oo adduunyo aad kala karisid mar walba waxay rabaan inay cunto badan cunaan inuu feeraha dhiso inuu boodhiga dhisto inuu wiil yacni dhisan noqdo ee rabaan marka waxaa waa inuu gurigaada gaajo ahaanin oo gurigaada cunto ay noqoto available ayo nooc waa markaa tiin haystidaan kuu sheegayaa dadka tiinkan kuu sheegayaa dabeecadaha ay leeyihiin waa inaad daqalkooda iyo afaarahooda aad gelin haddii aad rabto afaarahaas in aad gashid waa in aad noqotid maamo hombal ah ama aabo hambal ah oo yacni lagula sheer garayn kara everythingka qasa ayaan idiin sheegi doonaa insha allah niila marka wiilkeyga ana high school ayo hadduu dhigtaa waxaan idinku sheegaya waa inaad iga faa'iida ayaan rabaa marka high schoolkii waa berigii marka waxay ahayd bishii waxay ahayd february ahayd bishii february ahayd marka maalinta jacaylka waa bishii february maalinta jacaylka ayay ahayd iskuulkan ilmahan anaga naga tagayaan ilmahaanaytu waa wadankan ay ku dhasheen isku manihin waxa anaga aan belief gareysana ayaga ma belief gareysano inkastoo cunugan ogeey inuu islaam yahay waad u sheegaysaa inaad islaam tahooyo inaad gabar korkeeda taaban karin inaad mataqaana hooyo macaan adiga qof islaam tahay waa u sheegay waa kii qaata waa qaata kii kalena ma qaadanayo laakiin waa inaad sheegtid xaaraantaad maalin walba kusoo celcelisid waa inaad ajnabi qofka aad kala tihi inaad taabanin laakiin waa loo imaanaya wiilasha waa loo imaanayaa gabdho ayaa u imaanaya waxay dhahiin waan ku jecelnahay waan kaa helnay waa la-aantaada ma noolaan maalin walba saasaa loo taagan yahay loola daba taagan yahay waxaa dhacday marka cunugu marka haddii aad saaxiib la tahay wuu kula sheer kareynaa waxyaabahaas oo kale hadday jiraan marka waxaa dhacay wiilkeyga ilaahay idaysta maasha allah tabaaraka allah waxaa jirta marka maalintii marka gifti aa laisku keenaa bishaas qofkii marka dadkii mataqaana qofku wuxuu jeclaa buu wax gifti usoo gadayaa waxaa loo soo gaday giftiyaa loo soo gaday bahalkan oo beerka oo wadnihiisaas ugu dhegsan oo guduudin marka wax walbana waa wada reed waa maalintaas sayto oo guduudin oo mataqaana la dhahayo mataqaana waa ku jeclahay oo beerada waxaa waa weyn kuwa weli wax yariis ma ahayn baa loo soo iibiyey intii loo soo iibiyey gabaraa guddoonsiisay waxay tiri waan ku jeclahay aniga maadaamaad jecelkeyga tahay waxaa waaye gaftigana ku keenay marka wuxuu dhahay hooyo waan dhihi waayo dhahay yacni reject inaan dhaho yacni no kaama qaadinaya inaan dhaho because it's not good at qofka inaad yacni breakgraysid u dhahay yacni haartkiisa markaas waxaan dhahay thank you waa kasoo qaatay u dhahay markuu kasoo qaatay waa fikri marka xaguhu marka geynaa waa marka xagu maanta marka waa la ogi cunug yar xataa waa ogi waxa hadaa wadatid cunug yar xataa waa ogaana hadaad wadatid inay gabar maanta aad jecleed inay kusoo siiso qof walba marka ogaan kara wuxuu sameeyey boorsadiisii intuu geliyo ku xiray boorsadii uu geliyay aabihiis iyo iskoolka isla joogaan aabihiis uu muu sheegin boorsadii jubsii basketballka marka after that basketballka ciyaareen basketballka kusoo daahay adi markii 8 o'clock ahayd oo aabihiis keenay marka
aabihiisaa keena siduu usoo socday kabaha markuu iska siibay anoo qolkaygu ku jiro ayuu qolka intuu iigu soo galo qolka xirtay marka wuxuu marka ani iigu keenaya uu intuu soo mooday aabihiis gaarigu kusoo qaaday way isu joogeen umuu sheegin ulama sheegaraynin laakiin wuxuu intuu usoo maray ani iigu keenaya yani kalsooni ani ugu qabo waa wuu soo baxay qolkii uu xirtay hooyo maxaa kuu sheegi karaa markaas waxaan ku dhahaa waa ii sheegi kartaa hadda laba imaatee haayuu dhaha hooyo gabadha maanta wuxuu dhahay isiisuu dhahay giftii isiisuu dhahay bahalkii furay boorsadii furay wuu soo bixiyey ma rabiyuu dhahay ilmaha inay i arkaan aabbana inuu i arka ma rabiyuu dhahay hooyo because hadhow fanay iga dhiganayaan haye marka waxaan rabaayuu dhahay sidaan aan yeela lahayn aniguna ma rabiyuu dhahay waxaan waa ka soo qaaday gabadhan waxaan u baahanay ma huu dhahay aniga fahant gabadha inaan waxaan ka baqaday no ma dhihi waayo dhahay inaan niyadda ka jibiyaan diido dadka from of the people waa accept degree waa ka qaato dhahay laakiin anigu waxaan ma rabiyuu dhahay hooyo aabbana waan ka cabsanaa inuu arka ma rabi ilmahana wuxuu dhahay haddii ugu arkaan waa bes tala keen buu ugu dhahay marka adiga sidee baan yeelanaa bahashaan markaas waxaan ku dhahay keen bahasha aniga ii dhiib baan ku dhahay halkaanaan dhigayaa anaa waxaan dhahaynaa mid yar wala gabar yaro ana aan dhalay waay mid yaraan usoo gadaan lee ayada askalaan leena sheekada haddaan dhahna ka waran waa lii haagarey hooyo thank you waa iga fajisuuda I was like confusion u dhahay meelaan geeyey bahashaanayta baan ku wareersanaayo u dhahay marka haddaad taladaas keento u dhahay is easy like okay u dhahay saas sameey u dhahay ii qare hooyo halkaasaa macal iga siiyey qolkiisiyaa la kale bahashigan gabadha agteeda usoo dhigay ilmihii wuu arkay waastis maanta soo maxaan soo maanta jecelka mihino tiyareedan usoo gadaan ku dhahay ayada iskalaan ku dhahay bahashaanayto ilaa hadda gurigee taallaa ma faateed abaaheeleyda ayadaa qaadatay aan ayadaa iskalahaan mid kalaaba dafo anaan rabaa u dhaha uu qaato oo wiil leh marka fiiriya cid hadda og male bahashaas waxa gurigu soo geliyey waxaan dhahay anaa soo gaday wiilkeeyine he was walbahaard anigu ii imaaday wuu uu sheegay haddaan dhihi lahaa ka waryaa maxaa u soo qaadatay magaalada waxaa la soo qaataa maxaan faa'iidi lahaa ii sheeg dib dambe wax daba iguma sheegan lahayn dib dambe wax daba iguma sheegan lahayn saa marka waxaan idin wura sheer garaynayo idinka ayaan rabaa inaad ka faa'iidiin hooyooyinka ayaan rabaa inaad ka faa'iidiin marka hadduu fasax leeyahay hadda guriga oo saaxiibadiis ay soo wacaan wuxuu leeyahay hooyaday ma la hadlaysaa wuu ii keenaa waan la hadlaa saaxiibkeyga wuxuu dhahay hooyo aan dhaho hooyaday la hadal haye keen waan la hadlaa saaxiibkiisa markaas la hadalnahay waxaa leeyahay thank you bye okay yani cunugii waxaa waaye wuxuu ku siiyo waxaad siisay confidence siisay aabihi ma dhihi karo because wuu ka baqaayaa laakiin anigu wuxuu igu dhahoy saaxiibkeyga la hadal saaxiibkeyga la soo hadal wuxuu aan hadda iigu dhiibaayay iigu sheeganaya gabadhii soo siisay mataqaanaa ee dhahday waa ku jecelahay bahalki marka fiiri because waa kalsooni uu kugu qabo waa cunuga marka gurigooda markii ay tagaan ay qolkooda ku jiraan waxay jecel yihiin qolkooda inay hoos ka xirtaan ay jecel yihiin don't bother him haddii aad fareen la tahay waa lagaa furaa albaabkana haddaan qaraaca yaa waa uu leeyahay hooyo haddaan albaab fur hore iga furaa okay hooyo waa soo fariistaaye maxaa qoraysa anoo qoslaan u gelina anoo qoslaaya oo iska isferferayni waxaa leeyahay okay telefoonkaas aan qahay maxaa fiirinaysa maxaa qoraysa waa u gelina marta may hooyo waa kana okay waa kana hooyo waa kana fiiri marka waxaa la rabaa marka saasoo kale inaad marka saaxiib ula noqotid baa la rabaa special hooyooyinka ayaan sheegaya aabahana muhiim waayo inuu la noqdo marka waxaan intaas ayaa idinka faa'iideynaya walaalihii Soomaaliyeed channelkeyga isa subscribe maxaa la dhahay subscribe isaar kaama joogo lacag kaama joogo waa iska free ku shub subscribe-ka like-ana ku shubo qaar iyo baraka ayaan idinka tegay another video waxyaaba badan aad ka faa'iideysaa aad bay muhiim u tahay inaad ogaatid oo mataqaana waxyaabahaas laga qofka oo experience kale inaad ugu faa'iideysatid mataqaana ilmaha
ada kuu soo koraaya yacni sidaad relationship u yeelatid insha allah. marka hadduu aad ka heshay storygaas like iyo share ka xaggaada waaye. marka waxaa idinka tegi khayr iyo baraka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.